مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل ما حملي كران وليس انتاس كبدن waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyadooda loo adkeeyo dawladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado processka aan lagu mashquulin qof walba campaignkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas la isugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020 golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hogaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey dib ugu laabashada heshiiskii 17 Sebtembar waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo codaynta aan isdegeysanno xildhibaanada codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska 17 Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay malaha xildhibaan diiday malaha waxaa ogol u codeeyay 140 xildhibaan sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 Sebtembar sidaas oo ansax ku yahay intaasi kadib madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u mahad celiyay xildhibaanada golaha shacabka siday u meelmariyeen heshiiska doorashada 17 Sebtembar gudoomiye waa mahadsantahay adiga xildhibaanada sharafta leh waxaan ku faraxsanahay aan idinkaga mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo birteen kalaabka tanaasul oo aad ummadda Soomaaliyeed u tanaasulsheen haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirayn insha Allah maxamed cabdinaasir ayaan leh Universal TV مقدشو مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا